السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داودياشayda dunida dacaladeeda jooga waa guri baraqeyd leh kiya halhe maanta waxaan ka sheekeynayaa barnaamijkii hore mid la xiriira oo laakiin si uga duwan oo ah heesahan anigu la xameeyay iyo siday ku soo baxeen ama aan sameeyay iyo siday ku soo baxeen markii ugu horeysay for example heestii ugu horeysay la xameeyo waxay ahayd markii aan isla sheekaysanay islaantayda oo aan damacsanaa hadii goraale markaad inana sileeda la sheekayso waxaad ka filaysaa inay ku tiraahdo maya iyo inay ku tiraahdo yes labadood ka filas sidaa darteed ayaa waxaan ku fakiray in armay no yes ku tiraha maya ku tiraahda ay ka fikiray kadib dabadna saaxiibanii baan arkay hees oo hayo abwan caqaayada la yiraahdo nin weyn warwaadana uu la sameeyaa waxaan arkay heestu akhriya in aniga qusayso maadaama sheegan doono habeen dambe jacaylkayga in aniga ay qusayso kadib heestu aan ku wada xameynaya waan la xameeyay marka waxaan doonayaa inaan qaadaba ma doonayo mar inta la xameeyo markaan jacaylka sheegtay aan ku guuleystay kadib inaan qofkii u sheego oo maalmaha dambe wax laga sheekeeyo loo baahay soo ma habeenkii koowaad maalmaha dambe waxaad ka sheekaysaa isaga baahanta sidaa darteed baan dabeedna ku edhi ayaan heestu la xamay heestu sanay u dhacaysaa ila socda hoggaanbaadigu wadaa tufaaxaadan ku yaal baran hawl yari ahayn ayaad haba igu tidhi hoy hoy aniga ayaad haba igu tidhi dareenkay hawlayo hoggaanbaadigu wadaa tufaaxaadan ku yaal baran hawl yari ahayn ayaad haba igu tidhi hoy hoy aniga ayaad haba igu tidhi dhul hawro habasha iyo hirkaadi tustaan arkaa ishaanka hilaadiya tan xiisaha hollado hamasha iyo hirkaadi tustaan arkaa ishaanka hilaadiya tan xiisaha hollado hankiyo dookhaanu qabo haddaan is idhaa u sheeg armay hoosii dhigtaa intuu hadalku iga dhaco armaan hiifka la kulmaa hankiyo dookhaanu qabo haddaan is idhaa u sheeg armay hoosii dhigtaa intuu hadalku iga dhaco armaan hiifka la kulmaa heesta koowaad inta saas ahayd hankiyo dookhaanu qabo haddaan israa u sheeg armay hoos sii dhigtaa dabeedna hiif kala kulma markii dambe oo aan ku guuleystay oo waxaan kugu idhi lixdii difaac iyo gooliyaha baan u gasay waxaan qaaday hees aa wada taqaaniin aayaha jacayl wuxuu adkadaa dhidibkuna u asmaa marka laysaroose ayaheenu waa khayr ayaheenu waa khayr ayaheenu waa khayr ilaah adduunka sameeyey aadama ku biraan ilxun ku samayno ama waad u qalantaa ilxun ku samayno ama waad u qalantaa haddii ay adduunyadu kula tahay wax badan aadi wana laba ayaamoode inta ayna kala go'in wana laba ayaamoode inta ay
ana kala goyn ilaa qabo jacayl ilaa qabo jacaylka dadna waxaan idhi ubad lagu nagaadiyo inaamanka sugayaa aqalkaynu taagne ifka noloshu waa adi ifka noloshu waa ifka noloshu waa adi ifka noloshu waa adi balse maasha allah hablaan dhala habla ay dhashay laakiin markaad habla dhashaad ogaanaysaa nolosha macaankeedaba iyo dhadhankeedaba markaasaad ogaanaysaa because wiilku waxa laga yaabo meelahaas ka ciyaaro oo waxa kubadiya wax ku hawlay laakiin iyada 24 saac laabti kaaga jirta garhka ku qabanayaan oo kala xama halkaas ay fara ka gelinayaan aabo si naxariista hablaha ku jirta asxaabteeda qaaliga warka waan ku badiyay intaasaan maanta idinla wadaagayaa balse insha Allah sheekooyin macaan oo fara badan baan idin soo wadaa maanta intaasaan idinla wadaagay qisada yar aniga xaggayga marka jacaylka sheeganayay markii aan marka imkan waxaan idinku dhameynayaa hees hore loo qaaday ayaan idinku dhameynayaa dabarigu xidhnaayo taraadaa u oomanayo dalkii dibadaba u nacay dabarigu xidhnaayo taraadaa u oomanayo dalkii dibadaba u nacay xalay baan qarqadho anigu iga qaaday mari adigu xalay baan qarqadhoon anigu iga qaaday mari adigu waan dibadgaaloobay waan dibadgaaloobay waan dibadgaaloobay waan dibadgaaloobay dabin haddii lagu dhigo kolanka daya ku idhaa kugumaan daawadeen hawl dabin haddii lagu dhigo kolanka daya ku idhaa kugumaan daawadeen hawl waan dibadgaaloobay waan dibadgaaloobay dib jiray sida duuyacay madahe dirnaxaa ma kugu yaallo marna may danqanaysa waan dibadgaaloobay waan dibadgaaloobay waan dibadgaaloobay waan dibadgaaloobay والله السلام أصحابته أنت سند كنت تشيني أمانته بس إن شاء الله شيء يكون عصب بردي بلا بدونا يروى هذا هبوردي تشوكتين دونا. Thank you.